Israa'iil oo la sheegay inay si qarsoodi ah Hargeysa iyo Berbera u geysay saddex ka mid ah raadeerada ugu casrisan ee qarniga la isticmaalo kuwaas oo ku hortagi kara in hawada Somaliland diyaarada ay ku soo xadgudbaan. dabaaldegyo kooban oo ka bilowday gudaha magaalada Hargeysa iyo Cabdiraxmaan Cirro oo mar kale telefoonka kula hadlay saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Mossad waxa ku soo gudbin doona wax walba oo xalay ilaa saaka ka dhacay gudaha madaxtooyada iyo raadeeradan halka sida gaarka ah loo geeyay. sidoo kale qodobada kale aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona taliyaha militariga Somaliland Nimcaan Gaaxnuug oo boqolaal ciidamada ku daabulaya aaga deegaanadii ay ku wada dagaalameen beelaha Ciise iyo Samaroon. faahfaahinta ayaan kula wadaagi doonaa. sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa saldhigii la sheegay in la siinayo dawladda Soomaaliya ee Gooj Cadde oo hadda la sheegay in lagu wareejiyay dawladda Turkiga. diyaaradda F-16 oo xalay halkaasi tagtay iyo faahfaahinta amuurta ku saabsan ayaan kula wadaagayaa. qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idila wadaagi doonaa ee soo dhawaada. haddii taa markii kuugu horeysayna nagu soo biir oo subscribe waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno. aragtidaadana qaybta commentiga noogu reeb. waxaan ku bilaabayaa qodobkeena ugu horeeya ee sida ay tilmaamayaan ilawareedyo lagu kalsoon yahay oo dhanka sirdoonka ah. Israa'iil ayaa toddobaadkii la soo dhaafay si qarsoodi ah Hargeysa iyo Berbera waxay u geysay saddex ka mid ah raadeerada ugu casrisan ee ka hortaga diyaaradaha sida sharci darrada ah ku soo gala hawada Somaliland. maadaama Israa'iil iyo Somaliland ay is aqoonsadeen, Tel Aviv hadda waxa ay doonaysaa inay xoojiso xiriirka ay la leedahay Hargeysa. raadeeradan waxaa la sheegay in la geeyay banaanka magaalada Hargeysa iyo inta u dhaxaysa jeelka la yiraahdo Mandheera ilaa magaalada Berbera oo gobolka Saaxil ka tirsan. sargaal sare oo ka tirsan militariga Somaliland oo aan warkan ka soo xiganay wuxuu diiday inuu bixiyo faahfaahin inta ka dheeri ah. wuxuu sheegay in raadeeradan lagu rakibay meelo qarsoodi ah oo xataa loo diiday saraakiisha qaar inay booqdaan, waxaana xogta macluumaadkan haya oo kaliya xafiiska madaxweynaha Somaliland iyo taliska ciidamada sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo RRU. Somaliland waxaa la sheegay in warkan ay aad ugu faraxday isla markaana ay Tel Aviv uga mahadcelisay in xilligii ugu habboonaa raadeeradan la soo gaarsiiyay kuwaasoo awood u leh burburin iyo inay qalqalgeliyaan diyaaradaha sida sharci darrada ah ku soo gala hawada Somaliland. tani waxay ka dhigan tahay hadda wixii ka dambeeya diyaarad ay Israa'iil leedahay diyaarad ay leedahay Djibouti ama mid ay leedahay Turkidu ama mid ay Soomaaliya leedahay si sharci darro uma soo gali karaan hawada Somaliland oo raadeeradaas ayaa ka hortagaya. haddii si kale loo eegana waa dagaal diblomaasiyadeed iyo mid hawada ah oo lagu dhex dagaalami doono hawada Somaliland xilli Soomaaliya iyo dalalka Afrika ay leeyihiin waxba kama jiraan Israa'iil aqoonsigii ay siisay Hargeysa. marka aad eegtid muuqaalada hadda la helay iyo sidoo kale xataa macluumaadyada ama sawirada laga soo qaaday goobaha raadeeradan lagu rakibay waxay ku tusinayaan in meel istiraatiiji ah oo muhiim ah lagu rakibay, taasi oo dabcan ku tusinaysa sida xilligan muhiim ay ugu ahayd Somaliland in raadeeradaas ay hesho. haddaad xasuusataan 3 maalmood ka hor ayaan daawadayaal idila wadaagay in diyaaradda F-16 iyo diyaaradda JF-17 ee Pakistan iyo Shiinuhu ay farsameeyaan ay ku dhawaad 20 daqiiqo ku jireen hawada Hargeysa iyo Berbera inta u dhaxaysa, markii dambana halkaas ay ka laabteen. Somaliland waxaa la sheegay kolkaasi inay si weyn uga carootay iyada oo ka qoomameysay haddii maanta ay raadeeradaas heli lahayd in diyaaradahaasi ay ku soo xadgudbeen. inkastoo diyaaradda la yiraahdo F-16 ay si quman uga dhuuman karto raadeerada la geeyay magaalada Hargeysa iyo magaalada Berbera, haddana khubarada arrimaha la socotaahi waxay leeyihiin waa dharbaaxo culus oo ku dhacday dawladda Soomaaliya oo ku aadan in laga hortagi waayo in raadeeradaasi ay si toos u gaaraan Hargeysa iyo Berbera. Hargeysa iyo Berbera waa labada magaalo oo ay hadda ugu weyn Somaliland. dad badan oo arrimaha la socdana waxay leeyihiin haddii si kala loo eego Somaliland waxaa la isdhihi karaa waxay gaartay heer ay Israa'iil ka kasbato in raadeeradii casriga ahaa ee xataa Yurub qaarkood aysan haysan la geeyo magaalada Hargeysa iyo sidoo kale magaalada Berbera. dadka ka faalooda arrimahan waxay leeyihiin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waa inay dacwad iyo ashtaka kale ka gudbiso Israa'iil, taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin in lagu xakameyn karo qulqulatooyinka inta ka dheeri ah oo laga filan karo Israa'iil. marba haddii raadeero la geeyay xataa waxaa laga cabsi qabaa diyaaradda F-16 oo Israa'iil ay gacanta ku hayso in Somaliland la geeyo, taasi oo haddii ay dhacdo sheekada soo gabagabeyn karta in diyaaradda ay ku soo xadgudubto hawada Somaliland.
markii uu warkan soo baxay waxaa la sheegay Cabdiraxmaan Ciro inuu kulan degdeg ah iskugu yeeray inta badan saraakiisha ciidanka Somaliland iyo sidoo kale xataa khubarada dhanka amniga isagoo u sheegay in warkan uu yahay midkii ugu farxadda badnaa oo Somaliland ay ku tallaabsato isagoo sheegay in hadda wixii ka dambeeya aysan ka amar qaadan doonin lana socon doonin amaradii isdabajooga ahaa ee kol horeba ka imaan jiray dhinacaas iyo magaalada Muqdisho maadaama hawada Soomaaliya hadda laga maamulo Muqdisho tan waxay ka dhigan tahay in xataa hawada Soomaaliya aysan waxba ka gelin raadeeradan oo iyagu ay iswadayaan isxakameynayaan xilligay rabaana hawlgal fulin karaan waxay ku soo kordhay qodobkaas daawadayaal wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaa markana xalay waxaan idin la wadaagay in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu si weyn u canaantay taliyaha militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Sandheere labada ninba waxa si weyn loogu eedeeyay inay ku fashilmeen inay soo gabagabeeyaan qulqulatooyinka dhanka dagaalka ah ee u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Samaroon hadda Nimcaan Gaxnuug si aan xilka looga qaadin hadda wuxuu qaadayaa talaabooyin dheeraad ah oo uu doonayo in lagu soo gabagabeeyo horumarka ay beesha Ciise ka sameynayso dagaalka ay kula jirto beesha Samaroon in ka badan 3,000 oo asgari waa 3 guuto oo hubeysan gaadiidkooda dagaalkana wata ayaa la soo warinayaa in lagu daabulayo aaga gobolka Awdal gaar ahaan deegaanka Dixda Sheekh Awaare aaga tuulada Jidhi magaalada la yiraahdo Galmudoobe aaga tuulada Heemaal iyo koonfurta tuulada Habaas dhammaan deegaanadaasi waxaa gacanta ku haya ciidanka beesha Ciise waliba aan kugu dara ee 2 guuto oo kamid ah ciidankaasi waxaa la geenayaa Dixda Sheekh Awaare waa magaalo u dhow magaalada Boorame oo dabcan u jirta wax ka yar 30 kilomitir ciidanka Ciisana saacad walba ay halkaasi weerari karaan haddii aan la keenin xal degdeg ah oo dabcan lagu xalinayo xaajooyinka murugsan ee halkaasi ka jira Djibouti waxaa la sheegay inay si gaar ah isha ugu hayso qulqulatooyinka halkaasi ka jira sargaal sare oo ka tirsan dawladda Djibouti goorna wuxuu warbaahinta u sheegay in ay la yaab iyo ama kaag tahay in xilligan la arko wax ka duwan wixii hore loo arki jiray oo uu la jeedo in ciidanka Somaliland ay dagaalka toos u soo galeen taliyaha militariga Djibouti Sakariya ninka la yiraahdo oo warbaahinta Djibouti kula hadlay wuxuu sheegay in ciidanka Djibouti ay dagaalka soo gali doonaan haddii ciidanka Somaliland dagaalka ay soo galaan taasi oo dabcan u eg isbalansi toos ah oo Djibouti iyo Somaliland dhexdooda ah Nimcaan Gaxnuug dhawaan waxaa loo diiday inuu booqdo xirooyinka ay ku sugan yihiin ciidanka beesha Ciise oo waxaaba laga cabsi qabay inuu beesha Samaroon u basaaso haddana waxaa la leeyahay xoog buu ku gali doonaa aaga tuulada Dixda Sheekh Awaare oo ay saldhig ku leeyihiin ciidanka beesha Ciise qodobkeena ugu dambeeyana haddaan soo qabto saldhigii kol hore aan idiin sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya laga siiyay taliska Goojacda gaar ahaan ciidamada cirka ayaa hadda la soo warinayaa in toos loogu wareejiyay dawladda wadanka Turkiga saraakiil sarsaro oo ka tirsan dawladda Turkiga ayaa goordhow warbaahinta waxay u sheegeen in ay ka warqabaan arrinkaasi diyaaradda qumaatiga u kacda ee la yiraahdo F-16 ayaa xalay xilli dambe halkaasi kormeer ahaan u tagtay iyada oo 2 sargaal oo Turki ah oo la socday diyaarad kale oo helicopter ah ay tageen saldhigga Goojacde isla markaana sawirro iyo muuqaalo ay ka soo qaadeen waa saldhig qaadi kara halkii mar ama ay ka duuli karaan in ka badan 20 diyaaradood waana saldhig qaadi kara in ka badan 12,000 oo asgari haddii loo baahdo baaxadiisana intaa waa laga sii weyneyn karaa wuxuuna ku yaalaa meel istiraatiiji ah oo muhiim ah oo waliba muhiim u ah dhinacyada isku haya gobolka Sool sida ay dad badan aaminsan yihiin khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin Somaliland iyo sidoo kale Ethiopia ku farximayaan in Turkidu halkaasi saldhig ay ka sameystaan waliba Israel oo rabta inay xeebta Berbera iyana saldhig ka sameysato la is anfici maayo oo xataa quwadahan awoodda leh ee nuclear-kana haysta waxay u badan tahay in gobolka Sool ay ku wada dagaalamaan Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale sargaal sare oo ka tirsan hay'adda Mossad ayaa la soo sheegaya in 17 bishii hore ay kulan gaar ah ku qaateen magaalada Hargeysa kulankaasi waxaa diiradda lagu saaray sidii loo qalqalgelin lahaa ama looga hortagi lahaa in ciidanka Somaliland saldhig ama ciidanka Turkida aan dhahe halkaas saldhig laga siiyo taasi oo dabcan uu si weyn ugu qanacay Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye ayaa laftirkiisa la soo warinaya in lagu wargeliyay warka ah in uu si degdeg ah xal looga gaaro waxa la isku hayo oo uu loola jeedo dabcan
in si degdeg ah saldhig ciidan looga sameeyo gobolka Sool gaar ahaanna aaga Turkida ay halkaasi laga siiyay ee taliska Gooja Cadde taas oo dabcan Cabdiqaadir Firdhiyan uu aqbalay wararkeena intaas bay ku dhan yihiin saaxiibayaal ee nabadgeliyo